السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسين صاحبي مركز جوجتان دافعية على العالم هلكا دقة داوان إنسان وأحمد بقية برتهنا أنا كلنا يوتيوب ما أنت كل الفرق بدن بجري كل ما هيسان أنا وكل البعض هنا بيش ما أنت واستقال العطن وبيش اللي حاسس إن ضربة كون إياه مركزي كوب لبي العطن wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka Jarmalka iyo haduu eebaha wadada maanta dul carari doona isla markaasina isku day doonaan waqti kooban halkan idinku soo gudbiyo intaan ka horreyn waxaan doonayaa inaan ira update idinka siiyo maxaa ka cusub lacagtii dad badan baa jiro soo weydiinayna war lacagta chapter kuna soo dhacday adiga taa sheegaysa meel anagu kaama haynaa horta number 1 anigu idin soo direen number 2 ga lacagtiina idin soo raacayso way ka yara dambeynaysaa marka hadigdegina insha Allah wax dhibaato ma laha haddii aan idin soo raacin bisha kowdeeda iyadana gaar soo direen inta badan hal mar ma soo dhacdo isma soo raacdo wax hal akoon ka soo wada baxa ma aha waa wax laba jeer la soo kala diro marka taada hore ku timaado tan ka daba imanaysa marka hadana ku iman iska sug haday ku iman weyday ilaa bisha xoogaa toddobaadka ugu horeeya marka ana ku soo diraya e-bank-ka soo dir abba ma santihiin tigirka sagaalka ee dalkan Jarmalka bishii lixaad bilowday hadda dhamaanaysa toddobaadii sideedana socon doona ayaa waxa la sheegay inuu ahaa qorshe aad u hirgalay isla markaasina fiican laakiin ninba waxa laga hayaa nin tuugsanaya iyo wuxuu ku yiri ayaa lacag weydiistay kadibna uu siiyay waxa arkashadiisa lacag ku soo jirta masuuli inta kale ay ugu sii dar marka shacabkii Jarmalka iyo ururada Jarmalka waxay taagan yihiin sagaalkan eero maxaa dhacaya marka uu dhamaado su'aasha ugu badan ee inta idinku isweydiinaysaan way marka ururada ayaa qaarkood waxay leeyihiin war tigirka sagaalka eero hadduu dhamaado sidiisa lagu sii hayo ilaa ugu yaraan sanadka dhamaadkiisa hala wada ilaa bisha December sagaalka eero lagu safro ama abadiyaha laga dhigo oo sidaas sagaalka eero aan bil kasta ku goosano qaar kale ayaguna waxay aaminsan yihiin in maalintiiba hal eero laga dhigo oo sanadkii 365 eero tareenka iyo gaadiidka oo dhan markaasi lagu raaco waa fikrado markaasi la isdhaafsanayo la isweydiinayo maaha wax sharciya hadda bayaan sharciyan ha u qaadana fikradahaasi dabcan xukuumadda ay hor yaalaan xukuumadda ayaa loo diray dadku wax walba la soo yahay fulantii mooga marka xisbiga FDP ka tirsan xukuumadda sidoo xisbiga xukuumadda wada dhisay ayaa isagu arintaasi kaba soo horjeeda dabcan waxaan u taagay inaan hal eero lagu darin maalinta bisha 8 dhamaato in sideedii hore hadaan korba looga sii qaali garan lagu soo celiyo waxaan u sheegay tigidhada raqiiska ah ee markaas dadka loo sameeyo inay hantidii iyo qasnadii dawladda markaas dhibaato badan ku yihiin malaayiin eero markaas qasnada dawladda ay ka baxayso adigu saad aragtaa tigirka sagaalka eero lagu sii daayay rabtaa abadiyan ku sii ahaado ma hal eero laga dhiga rabtaa mise in sideedii hore dib lagu soo celiyo safarada isaga yarayno abba ma santiin qodobka xiga hadaan eegno garoomada dalkan Jarmalka ee diyaaradaha markaas ay ka gooshaan ayaa waxa maalmihii u dambeeyay xilligan xagaaga soo foosartay shaqaale yaraan markaas aad u ballaaran taasi oo xitaa dawladda gaadhay isla markaasina xukuumaddu ay ka hadashay sheegtayna inay isbedel ku sameysay dhanka dadka shaqada soo dalbanaya ee dalka banaankiisa markaas shaqaalaha ka soo dalbanaya dadka ajaanibta ah wadamada kale ku nool ee doonayaan dalkan Jarmalka ka shaqeeyaan inay sharci siin doonto ay muddo si ku meel gaar ugu shaqeeyaan isla markaasina shaqaalaha garoomada markaas ay noqdaan sababta ah maalmihii u dambeeyay maadaama safarada xagaaga u badan yihiin dadku xilliga dalxiiska lagu jiro shaqaalaha diyaaradaha oo yar awgeed wax la waayay cid shandadihii markaasi diyaaradaha saarto oo dhibaato ballaaran ayaa halkaasi ka timi ilaa 2,000 oo shaqaale ah oo diyaaradaha markaas ka shaqeeya dalka Turkiga oo Jarmalka ku soo qaadanaya shaqaale inta ka badan dabcan uu u baahan yahay qaabka shaqada loo dalbanayo iyo processka noocaasina kolay garoon kamida garoomada dalka Jarmalka iyo website-kiisa galaysa qaybta shaqaale raadinta galaysa kadibna shaqada ka dalbanaysa wadamo gaar ah ay marka laga reebo Turkiga oo ay sheegeen ilaa qiyaastii 2,000 oo qof inay ka soo qaadan doonaan Soomaalida ma laga soo qaadan doonaan shaqaale qofka Soomaaliga hadduu soo dalbado inuu garoomada Jarmalka ka shaqeynaya ma loo ogol yahay taas faahfaahin dheeraad ah oo si badan ma jirto insha Allah wixii xog ka soo kordha haddii shaqaale loo baahdo ka balaaran ama wax public laga wado qof kasta soo dalban kara waa idin la soo wadaagi doonaa marka ugu horeysa ee ay ina soo gaadho haddana ma santiin haddana eegno warkeena kale warkaas ku xiga waxaa jirta arrin mucjiso ah oo maanta ka dhacday dalkan Jarmalka khaasatan magaalada Bonn caasimadii hore ee dalkan Jarmalka ahayd kuna taalo gobolka Nordrhein-Westfalen waa magaalo taariikhiya siyaasiyiin fara badan lagu soo dhaweeyay xarunta UN ku ay ku taalo runtii waa arrin magaalo aad u weyn ayaa waxaa ka dhacay shil nin 37 sano jir ah ayaa waxa uu qudha kaga jaray oo ku dilay nin kale oo markaasi 44 sano jir ah haddaba weligood bay ragistiri jireen wax cusub ma aha laakiin waxyaabaha qisadan cajiibka ka dhigaya waxa tahay ninkani marka uu ninka kale dilay
qoorta ayuu kasoo jaray. qoortii intuu madaxa kasoo jaray ayuu madaxii ninka markaasi soo qaatay, waxaanu hordhigay albaabka ama afaabka maxkamadda magaalada Bonn. dhib ma laha, kamuu tegin, isaguna maxkamadii agteedii ayuu fadhiistay. dadkii markay arkaan madaxan meesha yaaliya ninkan meesha madaxa ag fadhiya ee booliska loo wacay. booliska markay yimaadeen waxay goobtii ugu yimaadeen madax markaasi meeshii soo yaala. المهم انك والله حداي الى هذا فاهمين لك مثلا بحنين كان جنسي نوعيه ايوه جنسي قوميه دي ايوه كسو جيري عدو ايوه كترسنا قبيل كيسا توبتا انه قبيل مرسباد marka jinsi laga hadlayana qabiil jinsi kasta waa qabiil gaar ah. markaasi noocaas lama sheegin, lama xaqiijin ajaanib inuu ahaa, inuu Jarmal ahaa, inuu madow ahaa, inuu cadaan ahaa. kulli kalarkiisa waxa garan karaya ama qiimeyn karaya jinsiyadiisa dadkii u dhawaa ama ninkan arkay markuu madaxa saar ka dhigay. haddaad Bonn degan tahay arrintaas war ma ka haysaa, maxaase ka dhacay, maxaase ka cusub? taas waa taa kole wixii kasoo kordhay ninkaasi iyo xaaladihiisana waa idinla socodsiin doonaa hadduu aabaha awoodda la yidhaahdo. aad iyo aad mahadsantahay. arrinta kale muhiimka ayaan doonaynaa halkan in yar idin dul taabto wax kamid ah. sabtida insha Allah waxayna bilaabmi doonaa koobkii dalka Jarmalka aan u qabanayno gobolada dalka Jarmalka. sabtida ayaa ciyaarihii ugu horreeyay la ciyaari doonaa, ciyaaraha aad u ballaaran oo waaweyn oo badan oo gobollo fara badan iyo deegaano kala duwan dalka Jarmalka ka dhici doona, la qaban doonaa. kolay daawadayaasha dad ka mid tahay soo dhawow, si live ayaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale habeen kasta waxaan idinka soo samayn doonaa clip yar oo kooban oo ku saabsan ciyaarahaasi, qaabka u dhaceen, kooxaha ka qayb galay iyo sida lagu kala badiyay iyo halkay ka dhaceen. isla markaasina si badan ayaad u baran doontaan dhalinyaradaasi deegaanada ay ka yimaadeen, kooxaha ay kala yihiin iyo qaabka ay u ciyaarayaanba. aad iyo aad baad ugu mahad celinaya saaxiibayaal. barnaamijkan maanta intaas ku saafmeynayna intaan barnaamijkan ku kulmi doono hadduu eebbaha awood la yidhaahdo. walaalkiin Axmed Boqayo idin leh.